بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابتي شرفتي قيمها يقايا بدن سود وهذا وقدوميها صدح قلك بالشدة أو ما أنت إني هيا برامشو هي بدن أدو إلهي راد وأد أركي دونتين إن عديمو waxaan rabaa asxaabtayda sharafta iyo qiimaha badan soo dhawaada. waxaan rabaa inaan ka hadlo hibo shiiqay soo dhawo walaashay macaanto jaweyri qaali soo dhawow jawaahir qaali soo dhawow suusaan fadhi soo dhawaada asxaabtayda hibo calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamij waxaa inii hayaa ku saabsan degmada warta nabadda oo dhibaato aada iyo aada u baahan leh dadkii iga soo sheegayaan hibo walaashay macaanta soo dhawow malaaga ku salaanto. waxaan rabaa asxaabtayda sharafta iyo qiimaha qaayaha badan inaan inii soo gudbiyo sawiro oo aada indhihiina ku arki doontiin dhalinyaradii agoontii dadkii degmada aan u ordanay oo u dagaalamanay. saciid qofka ugu horreeyaan soo qabanaya adiga waa walaalkay macaani shamso calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. jamiilo gargare walaashay macaanta soo dhawow. waxaan rabaa asxaabtayda fiidowga inaa ii sheergaraysiin. waxaan rabaa barnaamijkayga caawa wuxuu ku saabsan yahay hibo barnaamijka waxaa waaye degmada wardhiigley ama degmada warta nabadda sidaa u taqaano ayaa waxaa iskugu darsoontay amni darro, nadaafad darro iyo masaakiintii degmada oo dhibaato aada iyo aada u baaxale ee lasoo kortay. ismaaciil sami soo dhawow, suusaan fadha maasha allah warka waa dhow yahay edurqaan soo dhawow. marka waxaan rabaa in sawiradii laysoo diray aada indhihiina ku aragtiin. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. xawaalu maxamuud soo dhawow walaashay macaanto. marka waxaa rabaa asxaabay dadka reer wardhiigley cali aadan waa ujeedaa, walaalkay macaani waa ujeedaa. soo dhawaada cali aadan abti, cali aadan xaashi abtigay macaani lafihii degmada warta nabadda legend saaxiib oo kusoo qabanayaa ee durqaan. barnaamijka ha bato dadkuna haddaan bilownay. guddoomiye wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. maxamed cilmi sheekh walaalkay macaani soo dhawow. waxaan rabaa inaan intuso legend sami ku taagana samigay ismaaciil weheliya oo ku taaganahay maandeeq soo dhawow. waxaan rabaa caddeemo inaan tuso degmada warta nabadda saacaddan ayn la hadlayo wax guddoomiyaha oo jooga ma leh. sida lay sheegay guddoomiyuhu waa maqan yahay, dalka waa ka maqan yahay, meeluu aaday cid bini aadan oo ka warhaysa ma leh. degmadii amni darro, nadaafad darro, baahi ayay dadkii degmada iskugu darsoomeen. sacdiyo soo dhawow walaashay macaanto calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. maxamed qaran maasha allah walaalkay macaani waa raadinaa intay nafta igu jirto. insha allah ilahay waxaan ka baryaa in guddoomiye midaan dhaanto ilaahay noo keeno hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynayaa in guddoomiye degmo oo nadiifa oo degmada u dhashay in la keeni doono. hiba maasha allah caddeemankiiaan marka in tusaya hadduu ilahay yiraahdo fiidooga markii la sheergareeyo oo laysoo diray maanta. waxaan rabaa marka in dadkaas dadkii masaakiinta agoontii iskuullaan geenay, dugsiyaan geenay ani iyo dadkan jaaliyadda dadkaan hadda i fiirsanaya asxaabteyda ah. lacagihii iyo bashka oo kuu jeedaa walaalkay macaani cadaado carfoon maasha allah walaalkay macaani. marka waxaan rabaa asxaabay inaad fiidowga sheergaraysiin hadduu ilaah yiraahdo. waxaan rabaa inaan intuso saciid faarax oo kusoo wacaya hadduu ilaah yiraahdo. waxaan rabaa inaan dadka qof walba halal usoo maariya oo ku jeeda walaashay macaanto. waxaan rabaa sawiradii laysoo diray inaan intuso marka hore inkoo maasan si ay dadku ay u ogaadaan sawirada malkaan ka degina. horta sawirada waa kuwaas waa ujeediin waa degmadii warta nabadda aada ujeediin dhiiqadaas. hadduu ilaah yiraahdo sawirka kale waa kaas, mid kale waa kaas, caruurta waa kuwaas iskugu darsanaa masaakiinta baahidii meelay maraan ma leh. waa ujeediin ilaahayn ku dhaarshay, waa ujeediin ilaahayn ku dhaarshay dadkaas xaggee marayaan, xaggee aadayaan. ilaahayn ku dhaariya dadkaas bal fiiriya ilmihii yarraa waay baahi iyo nadaafad darray isku darsadeen. firdows oo kusoo wacaya walaashay macaanto hadduu ilaah yiraahdo. waxaan rabaa in fiidowga nala sheergareeyo oo kuwaas caruurteenii waa kuwaas iyakoo cunugaas yarkaa walaalkiis uu daadguraayo. waxaan rabaa marka inaan sii tuso waa kuwaas nadaafad darrada degmada ka jirta. sawirada laysoo diray iyadoo fiidiyo oo muuqaala. ilaahayn ku dhaariya dadkii aaway, dadkii halkaas deganaa aaway, guryahoodii iyo nadaafad darrada ka muuqata aaway. marka waxaan rabaa asxaabi inaad fiidowga ii sheergaraysiin hadduu ilaah yiraahdo. qof walbana waxaan rabaa
degmo walba inaan soo tabiyo maaha degmada warta nabadda keliya degmada yakshiid boondheere howlwadaag waxaasoo dhan waan soo tabin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo anigu waxaan u doodaya waa xaquuqda dadkii masaakiinta degan nadaafad darro ayay isku haystaan marka waa ujeediin dadkaas meeshay degan yihiin asxaabay fiidowga la sheergareeyo fiidowgan tusaya hadduu ilaah yidhaahdo waa ujeediin fiidowgan soo diray hadduu ilaah yidhaahdo fiidowgan tusaa bal ilaahayn ku dhaariya bal fiiriya ilaahayn ku dhaariya bal ilaahayn ku dhaariya bal fiiriya waxaan fiiri ma fiiri karno yiri waan kuga celinaa dhegeysta ma yiri wadada degmada oo biyaha fadhiyeen dhegeysta oo dhaaya waxaan ma fiiri karno oo ujeediin waan kuga celaa mar saddexaad wadada degmada waaye biyaha fadhiyeen waxaan ma fiiri karno marka waxaan rabaa asxaabtayda inaan marka kaga kala baxo barnaamijkayga haddii ilaahay yidhaahdo oo aan toos in kugu tabiyo barnaamijkayga socday marka waxaan rabaa asxaabtayda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan indhihiina waa ku aragteen muxuu yidhi wadadan waa wadadii degmada fiiriya maaha xamar jadiid maaha maxaa la dhahayay xaafadaha ifi aqre iyo maaha laanta koowaad iyo laanta saddexaad maaha marka maaha wadadii degmada ayuu wuxuu yidhi waa wadadii degmada marka waxaan rabaa asxaabteeda wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu cumar soo dhowow marka waxaan rabaa asxaabteeda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan inaad soo dhawaatiin fiidowgana la sheer gareeyo barnaamijkayga maalin walba oo badina degmooyin badanaa soo socda degmooyin badan ayaa soo socda hadduu ilaah yidhaahdo cid bini aadana oo looga cabsoonaya ma haba yaraatee shacabka baahidiisa ma jirto marka waxaan rabaa asxaabtayda fiidowga sheer gareeya hadduu ilaah yidhaahdo in dadka masaakiinta ee baahida siciidaya in dadkaan assalaamu calaykum waa ku salaamay maasha allah bashka soo dhow saaxiibkay waa ku salaamay adiga iyo asxaabtaada dhammaan inta meesha ku jirto waa idin salaamay nasiibadaa u yeeshay dadkii ugu horreeyey oo barnaamijka aan soo qabto sawirada waa ku tusay fiidowga waa ku tusay waa arkay dhibaatada niyahow dhibaatada wardhigle keliya maaha hodan any degmo all degmooyinka oo dhan waxa waaye niyow roobka iyo daadka saas u qaado ma fahantay marka gudoomiyihii gobolka banaadir master yesman oo yarisow waxaa u jeedayba wuxuuba la kaftamaya uu la sheekeysanaya hadda facebook waa soo sheer garaya u maleynaa ma fahantay wuxuu la sheekeysanayay wuxuuba ku dheganaaba fiqi wuxuu leeyahaba fiqi wuxuu waaye oo hadalkiisu wuxuu gacan saar siinaya uu leeyahay argixisada iyo sidaan dadkii niyadda ka jibinaya shaqada loo idmaday ama loo dhiibtay maba u jeedabo horta gudoomiyaha gobolka banaadir kow taas labo lacagahan magaalada canshuurta dadka laga qaado iyo masaakiinta waxay ku baxaan campaign gobolkan burburi gobolkaaneeto nin aniga oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg nin aniga oo wax iga maqlaayo meesha maamul goboleedkan ma amrooyaa kan lacagtan qaad lacagtan geli war waxaa ka daranba biyaha iyo wadooyinka jajabay wax dhibaba male waaba la dhisi karaa laakiin cudurrada ka dilaacayo meesha cudurrada ka dilaacaya muhiima in wax laga qabto ma fahamtay hadda sida sawirada laysoo diray aad maqlayseen uu yiri meeshaan waa wadadii degmada waa u jeediin u fiirinayo wuxuu yiri isaga intuu iska yaabiyo wallahi waxaan wax la fiirsan kara maaha video waa iska damiyey dhalinyaradii degmada waaye meel la maro male ilmihii yaraa cudurraa ku wada dhacayo oo dhiiqadii dhex marayaan gudoomiyihii degmada maba joogaba oo sida la sheegay that's what I mean waxa ka wada ii sheeg waxa ka hadlayaa dhismahan iyo biyahan iyo daadkan iyo waxaan dhibba ma lahaba taagana ani waxaan taaganahay dadka masaakiinta oo danyarta waxaan ka rabaa
micnaha cudurrada meesha cudurraa ka dilaacaya biyahan dacdan iyo wasaqdan iyo cudurraa ka dilaacaya marka waxaaba taaganahaba waxaaneeto nin walba nin wadanka qandaraas beenus ka qaadanaya ninaa wuxuu kuleeyahay wadadan waxaa dhisaa kuleeyahay jidka soddonka mid wuxuu kuleeyahay wadada waxaa dhisaya qandaraas ciidiya waxaa la dul saaraa laami ma fahantay ilaahay masaakiinta horta ha u gargaaro aadan uga danqado wallahi maanta markaa arkay maxaa la dhahaa ii sheeg hadda adi fiidiyoyadan iska dhaa fiidiyoyo kale oo aniga oo la ii soo dira hadda arki lahayd wadnaha ku go'i lahaa ilmo yaririis oo biyaha jilbaha u joogaan iyo maalihi deganaayeen oo biyo guryo galaan aani la ii soo diray kuwaas ma aqaan dadka qaarkood inay arkeen qof private ii soo diray marka dadkii qaarkood waxay ku leeyihiin dowladdii aa mucaarad ku tahay saasaa usoo dhigay war dowladdaa mucaarad u tahay waxaaneta ma aha waxaa waaye waxaan adiga maanta adiga aan anaga ka qaylnoono biri aday ku qabsan karaan moogtaadi waxaan uu qof ka qaylin lahay maanta biri maxaa la dhihi jira ninkii loo xiro ninkii khayrkiis loo xiro waad ma soo qoyso waxaan dadka soomaalida ah ma aha waxay ku leeyihiin ها معارضة تاي ساني سانا تاي بابا waxaan loo joogin فيديو hadda basi share gareenaaba anoo ku jira waaba share gareeyay fiiri waxaan ku sheegaa marka dadka niyo masaakiinta niyo umadii waxa la leeyahay qofka maanta haduu uu dawladda yiraahdo niyo waxaana qaldan saani saan wada qaldan waxa leeyahay saciido dawladdu waa arrimiyada ka hadli doona hadda waxaan ka hadlanaa waa وصح dadka naadi fahmeen waxaan ka hadlana hadda waa nadaafad darada degmooyinka ka wada jira maadaama xilli roobaad la galay wax nadaafad oo ka jira iyo wax hoolana ma jirto maya maxaa ka hadlaa fiiri nadaafada idageyso fiiri idageyso ma ka hadlaayo dawladda xag iska dhig waxaan hawshan shaqada waa hawshi dawladda iyo gudoomiyaha gobolka lahaa waay shaqadiisi waay waxa uu gudoomiye gobol u yahay maaha inuu difaaco maxaa la yiraahdaa ii sheeg master khayre maaha inuu farmaajo iyo wixii taas ha laakiin maya hay u taala ii sheeg saciido inay fahantidu waay barnaamijka anaga leexin ana waxaan ka hadlaa ma kala leexinay waa ku fahma Ismaaciil ma kala leexinay laakiin shaqo ahaan iyo dhaqaale ahaan meesha ugu sokaysa hay'adda maanta ugu sokaysa oo dawladda oo maxaa la oo dadkaas tabarucaad u fidinay yaa way ii sheegtada ku weydiinayay hadees gudoomiyaha hadees ahaan maxaa la dhahaa gobolka banaadir maxaa la dhahaa hadeesan dadkan wax taraynin yaa waa qofka maanta ugu sokeeyo waxaan ka hadlanaa waxa waaye degmada warta nabadda maanta ay tiradka noo saar yihiin ka bacdi sidii mooyinka kale aan habeen dambana aan degmo kale u soo qaaban doono dhalinyaradii gobolka ayaa noo soo diray sawiradii dadku waa cabaabay wadooyinka waa xirmeen cid booyada u geynaysa cid iska xil qaantay ma arkaysi gudoomiye intuu iska xil qaatay xataa falay ma jiro xaguu aadaal marka gudoomiye xaguu aaday si fiican gudoomiyihii lama hayaa la yiri ilaa hadda dalku waa ka maqan yahay marka idaa jaa waa ku jeedaa marka dalku waa ka maqan yahay la yiri dalku waa ka maqan yahay marka iyaga dadka sheegi doona meesha hay caayin Ismaaciil hay caayin niyo aniga isma naqaano waxa ay ugu caaysa meesha ma yaalaan xoolana ani hay dhihin dada meeshan waxa waa qof walba ra'yigiisa iyo fikirkiisa dawladda daacayo hadaa amaano anay dawladeeda tahay maxaa adiga ka qusay dawladda meeshan nina igu casuntay nina aan wada hadleynaa waxaa noqotaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg dhageyste oo sharaf leh noqo caayda jooji marka waxaan ku sheegayaa taas halkaas oo gudbo niyow shaqadii gudoomiyaha gobolka wallahi meel uu jiro iyo meel kale ani hadda ma ogi laakiin niyow horta hore waxa la yiraahdaa degmada wardiigleen ka hadlana hadda yiriiso kama hadlano waa gudoomiyaha degmada wardiigley wuxuu ku tiirsan yahay horta hore degmo walba horta canshuura la qaadaa sida og tahay guri walba canshuura la qaadaa bil walba gudoomiyaha xilka uu hayo dadka xilka loo dhiibay ayaan hadda haysanaa ana ma haysan yiriiso yiriiso wasaar ma haysan waxaan haysanaa magacaabay degmadii qofkan loo magacaabo ma joogo inaa iftiinno haddaan nahay dhalinyarada xoolo soo dhawow oo degmo walba aan niraano war dadkan waxaa ka qaldan aawi shaqadii loo idmaday annakaan shaqadeena qabseeno annakii dhalinyaradii waxay taagan yihiin haddaan guddoomiye cagafyo qaadano oo annaka aan sakeelo qaadano aan nadiifino waxaa lagu leeyahay al-shabaab aa tahay iyo kuu dirsaday ciyaalku waa la xirxiraya ma fahmi ma saasaaba ka socotaba xaafadii hadda warriigley hadda dhalinyarada ii soo diray waxay dhaheen waa isxilqaami lahayn annaka carro iyo baabuur gedi lahayn bashiir jayn waa kuu sheegaa walaalkii macaani waxay dhaheen hooshii aan qaban lahayn xataa ma la qaban karo dadku waa xabsoonayaan ma fahmi ها لكن فيري إذا جيسو قدوميها warta asaga
shaqadiisiiba haddiiba loo qabanayo oo dadkii la badbaadinayo in la dhaho al-shabaabaa tahay iyo kanay ka baxday iyo ma ahaba waa qaldan yihiin ma jiro aniga waxaan iskugu dhacnay gudoomiyaha waxay ahayd dadka masaakiinta caawinaya waana ogeed goobjooga ka xamar anoo jooga waa ogaa taas been maaha total jooji maxaa dhacaa in masaakiin ma caawin karti degmadan anaa waa ogaa taas waa la socdaa kiiskaas waa la socdaa laakiin maxaa la dhahaa ii sheeg maya hadda adduunkii horta wax loo dulqaadan karo maaha wax aan u dulqaadanayna maaha haddaan ahanay maxaa la dhahaa bahda saxaafadda ama haddaan ahana maxaa la dhahaa dhalinyarada u taagan anaga soomaali ahaan dhibka waxa waaye horta waxaa la dhahaa dhibba sidee waxaan u kala koreeyaan in loo kala qaadqaado waaye hadda waxa waaye caawo waxa degmada warta waaye warta nabadda waaye laakiin ha birin degmo kale soo qaadana laakiin guddoomiyaha warta nabadda kolley wuu daawan doonaa videoga ama ha la gaarsiiyo niyahow waxaa ku leenahay ani horta hore degma ahaan hodana ka imaaday laakiin waxa waaye ha laakiin waxaa ka wadaa guddoomiyaha waa kula wadaaga waa kuu soo dira luuqa kugu soo dira laakiin waxaa ka wadaa niyow guddoomiyow leefleefkaaga iyo waxaaga iska qaado hadday kuu taalaa mishaarkaaga lagu mays laakiin waxa dadka ee dar ilaahay u sameynayaan oo fii sabiilillaahi loo sameynayo ha hor istaagin tii horaa ogeen ummadihii horaa caawinaysuu hor istaagaa ogeen meeshaan waxa waaye waxa shaqa adi aa qaban laheyd le lagu qabte kow labo maxaa waaye arrintan oo keenayso in horta hore wallaahi been makuu sheegaa guddoomiye degmayaasha aan ninka qalinka u siiyey cantooba ninaas naqaana maa horta hore ma aqaano waa guddoomiyaha degmada hodan waaye xaafadeyda waaye ha laakiin wallaahi ninkaas shaquu qabtaa shaquu qabtaa waxaan taaganahay ha ismaaciilow waxaan taaganahay niyow dadka guddoomiyaha maxaa la dhahaa ii sheeg degmada warta niyow aniga waxaan kugu baaqayaa niyow iscasilna kuma dhahaayo sidaana sameyna ma ku dhahaayo at least ugu yaraan waxaa samaysaa taaganahay dadkii oo dadka oo tabaruca u sameynayay ha kaa badbaadaan intaasa aniga aan horta aan baaqa u diraa intaas waaye marka aniga barnaamijkana waa hoosaan fadhinayaa maxaa la dhahaa waana dhegeysanayaa marka dadkanaan jaanis siinaya waana mahadsantaha insha allah haye thank you walaalkay macaane waa kaaga mahad celinaa asxaabay waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka runtaa dhibasa dhalinyaradii degmada deganaa waxay diyaar u yihiin markay sawirada ii soo direen aan wada sheekaysana odayaasha xaafadda waxay yidhaahdeen mudana guddoomiye waxaan diyaar u nahay inaan waddadan iska duugno inuu qof walba baaldigiisa ii soo qaato laakiin hooshaas ma la qaban karo waa lagu dilayaa waa lagu xirayaa taasna waxaa hortaagan maamulka degmada hortaagan in dadku ay iskood wax u qabsadaan wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu benland khaalid wacalaykum assalaam haddaan kusoo wacayaa marka waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed gaarsiiyo shacabkii degmada warta nabadda waa dhiban yihiin amni darro baahi waddooyinkii ka xirmay roobab xoog oo ka da-ay bashiir oo kusoo wacayaa qadka maa kaa xuniyo marka waxaan rabaa asxaabay bliis inaad videogaas iska sheergaraysiin mawduuca in laga baxo ma raba marka waxaan rabaa bashiir qadkaa kaa xun qaalidan siinan hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa in aan fariinteena gaarsiino madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waqtigii qaalid haye asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu war brother xaaladiina waa kuu fiicanahay idruqan waa kusoo wacayaa aniga igu soo qabi waa kusoo wacay bashka waa qadkaan kaa xun barnaamijka mala socota okay barnaamijka waa la socday macnaha degmada soo kama hadlayn oo macnaha sida wax looga qaban lahaaye soo maahan si fiican okay niyahow hadda macnaha wax badana ka hadashay oo waxaa dhahay degmadii macnaha waxyaabo dhalinyarta inay isku soo baxaan ayaka wax ay wada qabsadaan nalama ogolo waana laga diiday muhiimadda in laga hadlaa fiican macnaha degmada ama degmo kasta muqdisho ku taalo may maqashaa si fiican si fiican degmo kasta muqdisho ku taalo dhalinyar fiir horta muhiimadda waxay tahay maanta dadka nii diidayaa waaye waa dad adi calool oo macnaha waddanka dib in loo dhisa rabin muhiimadda ina kasoo qaadanayo macnaha ay fiican tahay
dhalinyarta Soomaaliyeed ayakaa bahdilan ayakaa dadnimo xumo heeso saddex qayb ay u qaybsameen qaar macnaha tahriibi wadanka ka baxay qaar wadanka qarxinayo qaar macnaha dawladda macnaha oo ilaalinayo oo qoryo wada wato marka dhalinyar Soomaaliya isku duwan malahan dad wanaag wada way jiraan adiga camal macnaha wadanka inay wax iskooda ay wax ugu qabsadaan oo wadanka hagaajistaan oo jididka ay wada dhisaan oo wixii qashin ay wada aruuriyaan aqooyinka wada oo hor taagan dad ayaa dad lacag ku dulqaato waxyaabahaas waxay ku dhici kartaa marka dhalinyarta Soomaaliyeed midka Muqdisho joogo kan qurbaha joogo inay wada midoobaan oo wadankii dhalinyara iskale horta aniga waxaan waayay dhalinyar Soomaaliyeed oo wada tashanayso oo aayahooda dalkooda ka wada tashanaya ma aragta adiga waa may wallahi yani dhalinyaradu way cabsoonayaan hadda dhalinyarada aniga ma joogo dalkii sawray ii soo direen amir yari waa ku jeedaa waxay dhaheen iyo gudoomiye wadadii degmadu waa xiran tahay wadadii kale xagga waa xiran tahay dhalinyaradii ciyaalkii masaakiintii degmada deganaa dhiiqadii dhexgelayaan meel ay maraan male cudurka ka dilaacay waxaan rabnaa inaan iscaawino mana loo ogola degmadii adiga waa naga tagtay aniga xaqa ahaan darurta ku sheegay degmada waa ila socotay facebookeyga anoo caawinayo dad masaakiin intii la yimid aan yiri waa bisana waa joojinaysaa waxaad aad caawisana degmada waa ka joojinaysaa markaan waan isku dhacay waxa la yiri meeshan ana ka taliya waxaad ka qaban karto male marka intaan oo aan u bareeray ayaan degmadii wali horumarkeedii iyo caawintii ka waday anoo oo diidan inaan marnaba degmadeedii dalkaygii aan uga cabsado hal shakhsi warniyow shakhsiga okay shakhsi صح niyo horta waa una intay baldiyaan u qaataan ay xaliista xataa haaf ay maraan ay ciidas kaga shubi karaan waa la wacayaa degmadii waxa leeyahay ciidan yaa hawshan inii diray kulli waa la xirayaa dhalinyarada okay problemka taagan hadda aan kaga la hadlayo taas way macnaha way cabsanayaan dad dawladda u shaqeeya ama dad gudoomiye macnaha ficilkooda iyo wanaagii wadanka ee u rabeen macnaha ma qaban karaan ma fahanti marka aniga waxaan ku leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed dad wanaagsan way jiraan ileen dhalinyar Soomaaliyeed isku xiran oo team oo wadanka macnaha fiiri dawlad maxaa lagu yahay dhalinyara lagu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed qurbo iyo bad iyo wadankii inay qarxiyaan kaliya soo artan iyo runtii inaan istaabsiina fiican qaar wanaag jiro way jiraan oo wadankii inay wax ka qabtaan rabaan qaarka sida aad sheegtay cabsi iyo dada hortaagan dhalinyar Soomaaliyeed isku duwan malaha fiiri dawlado badan aan soo maray gudoomiye Soomaaliyeed markii waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta Soomaaliyeed qurbaha kan joogo kan gobolada joogo kan caasimada joogo fiiri team isku xiran hadday noqdaan wallahi dawlad wala hogaamiye qofna celin karta malahan dhalinyar Soomaaliyeed isku duwan ma jiro qaar wanaag warta way jiraan caqabadaha hortaagan sida aad ka dhawaajisay marka dhalinyarteeni ayaga kala firaarsan qaar qabyaalada bahdilada facebookyada ka soo hadlay qaar wanaag wada oo adiga camal oo macna wadankii macna wax qabad macna inay qabtaan rabaan way jiraan ileen team isku duwan oo dhalinyar Soomaaliyeed ma jiraan dhalinyar Soomaaliyeed oo aayahooda ka tashanay qurbaha ka tashanay adduunka macnaha waxa la gaaray teknolojiyada la gaaray ka wada hadlay oo dalkii u soo jeesta waa ma aragta waa may wadankaas calankaas babanayo oo maanta xuriyada haysano 13 qof dhalinyar keentay hadda dhalinyar ma lahan qaar kasta qabyaaladu ku jira mid macnaha degmooyinka dhigis galiya oo ka oo cabsoonina والله برادا warkaaga dhexda kama galin degmooyinka wala qurbaha kan jiro war dhalinyarta Soomaaliyeed iyo damiirkay ka wada dhinta runtii inaan ka wada hadlaan fiican saaxib meel walba ay joogan qabiilkaas ka dhaafaan oo dadnimada iyo calanka u soo jeestaan ها adiga hadda degma sheegaysa degmada macnaha way wasaqowday dhibaato ka jirto ma ahan waa wadankiya faraha ka bixira wadankaas badbaadadiisa ama dhibaatadiisa dhalinyarta Soomaaliyeed badbaadin karto wallahi wadanka gumaysi dadban ku jira Soomaalida meel yaray wax ka fiirisa ma ahan dhalinyara wadanka iskale ayaka powerka iskale ayaka dawlad lagu yahay ayakiya la kala wata mid hogaami u shaqeeyo mid mucaarad u shaqeeyo mid wadanka qarxinayo mid bad ku dhintay wallahi okay brother markan iyo waa kan iyo wallahi aldaala halgam oo gacmaha wada jiray wax ku wada gooyaan dhalinyarta Soomaaliyeed 100% kala saaraniyo ayaka liita ayaka dadximo ku jirto ayaka qabyaalad bahdishay marka sidoo ilaahay ka dhigay noqonaysa ilaan dadaal hadaa la muujiyo wax badan la qaban karaa marka niyo barnaamijkaaga aad iyo aad kaaga mahad celinaa thank you adiga kale walaalkii wiil dhalinyara barnaamijka waxaan siinanaa dadka degmada dadka gobolka Banaadir degan si ay warbixino noo siiyaan degmooyinkooda baskaayi dhammaan asxaabta iyo
adiga barnaamijka diinayo hawada waxaan idin soo baranayaa. Asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. bashkan soo dhowow. Gudoomiye waa dhowahay. bashkan nin dalkii Dhammaan joogaa tahay, nin dalkii joogaa tahay, warbixinadana nin loo sheega ma tihid. dadka ku daawan doona ama dadka maxaad warbixin oo gaarsiinaysaa goobjooga u ahayd degmadii dhiiqadii iyo wasaqdii iyo waxa ka jira? runtii gudoomiye horta aad u mahadsan tahay. aniga kula hadlaayo horta wadada keliya oo xanuunka igu baahaysa waxay tahay wadada saldhigga Warigley ilaa u dhexeysa isgoyska Farlansa. wadada keliya oo aad u bahdilan waaye. sidaan ognahay gudoomiyihii hore ee degmada Wartanimada Yaasiin, gudoomiyihii ka horreeyey deeqay ahayd. deeqo waxqabad aad loo taaban karo ayay ka taabatay degmada Wartanimada. si fiican. gudoomiye Yaasiin aa ku xigay, inkastoo waqtigiisa oo saamixi waayey dhaawacyo haleel aawiis. degmadii wallaahi wadada u dhexaysa ifi aqiro ilaa degmada iskowska Falranso hadda roobabkii da'ay iyo sidee saameyn ay ku yeesheen dadkii isku socodka gaadiidka? horta gudoomiye ragga NGO-yada qaatay ee laamiyada dhisay bulaacado uguma talagelin. waayo wadooyinka waaweyn ee haaweyga ah sida wadada wadno oo kale ee halboolaha ah waa lamid. laakiin waxaa aad caqabad ugu xun ka jirta wadada ka leexata geedjeceel ee degmada toos u tagto Cabdali Cawareer. sidoo kale isgoyska Farlansa oo kale markaad soo fuusho ilaa iyo ifka xalan oo kale. Farlansa ay ku egtaa wadada ilaa ifka xalan oo kaleeto waxaa ka jirta iyadana aad burbur oo xoog leh ka jirto oo degmada dhankeeda ah. marka gudoomiyahana sida aan dareemayo waxaa ka muuqdo culeysyo iyo caajisyo horumar oo ku tilaabsanaynin. inkastoo gudoomiyaha gobolkana waxba colaada oosan ka muujinaynin ama dhankiisa oosan ka muujinayn inuu ku degdegsiiyo gudoomiyaha degmada Wartanimada in oo dhiso eriyada halboolaha ah. waayo wadada keliya oo madaxtooyada kasoo baxdo imaado xarunta xisbiga gacaanka Soomaaliyeed stadium Muqdisho waxay imaadaa Ciise Cabdi. waa wadada keliya ee halboolaha ka ah magaalada Muqdisho. waayo waxay qaybisaa wadada wadnaha iyo wadada Sodonka iyo wadada warshadaha. si fiican. sidee marka roobabkii hadda da'ay sidee dadka inay ku fahmaan aan rabaa? roobabkii hadda da'ay ma gebi ahaanba wadada waa xirmatay miya? runtii gudoomiye horta aad aa umahadsan tahay. 24 saac wadadaas ninka keliya oo ku dhex socda aniga ah. ninka keliya oo xaqiijin karaan in aan aaminsanahay. waayo keliya waxaa xaqiiqo ah inta wada ah oo ifka xalan markaa kasoo baxdo waxaa ka xanuun badan isgoyska Farlansa markaa soo dhaafto ilaa wadada keliya oo kasoo dhexeyso isbartiibada Minishiibio. inta yariista u dhexeyso waxay ka xanuun badan tahay adoo ilaa iyo tegey meel gobola oo Carfiid ilaa iyo Balcad ilaa ama Jowhar way ka xanuun badan tahay halaas yariiska ah. waayo waxaan ka leexanaa isbartiibada Minishiibio, waxaan kasoo dhacnaa Somali Chicken, saasaa laamigu soo dhacnaa kadib Farlansa hoos uga deganaa. ma garatay? waa dhinacaas dhan marka waa geeri go-an aan leedahay oo total lama mari karo. waa boolaa ka qodmay. waa aad iyo aad boolo way ka qodmeen. waxay noqotay wado oo laisku ataaga way noqotay. hadda ka hor waxaa dhacday in xataa miino la geliyey meesha jaamacadda agteeda. in lagu sigto way dhacday. shacabkii halis ay ku tahay. gudoomiyaha degmadana muddo oo xilka hayaa uu garan waayey in meesha siriista ah oo dhammaystira xataa ilaa madaxtooyada ilaa iyo isku qabto. awalba isgoyska Farlansa bay ku ekeed laakiin uu garan waayey inuu kusoo dhammaystiro ilaa xataa saldhigga Warigley. intaas haduu kusoo dhammaystiri lahaa xataa waxqabad la taaban karay ahaa lahayd. laakiin waxaa noo muuqata haddaana dhalinyaradii degmada Wartanimada in gudoomiyaha waxba xili onos iska saarin. marka wax hadda dhaqdhaqaaqa ka socda iyo sida hadda dhalinyarada ay ii soo direen Sami, calaykum asalaam, waa mahadsan tahay. sida hadda dhalinyarada ay hadda sawirada ii soo direen ay sheegayaan in dhalinyarada xataa iyaka aysan shaqadaas qaban karin arrimo amni ogeed. maxaa ka jira arrimahaas? gudoomiye kaagama sheekey karo. waayo taas CV-gayga aniga waa la socotaa. muqdisho hadeertaana noo imaaday waa iska warhaynaa. aniga CV-gayga waa gooni.
dadka shacabka alxamdulilah waa kasii xogaa waa kasii horaa ugu sii dhaqaaqsanaa laakiin ma aaminsani degmada warta nabadda dhalinyaro issoo xilqaantay in ay samayn karaan maanta wadadaas waayo waxaa ku imaan karto caqabad xagga amniga ah gudoomiyaha degmada haddii asigii oo awoodi waayey inuu wadadii sameeyo dhalinyaradii ama degaankii hadday u kacaan inay sameeyaan wadadii waxaa ku imaan karto caqabad xagga iyaga amni daradooda ah waayo gudoomiyihii degmada wuxuu rabaa asaga in shaqadii oo sameeyo awoodna uma leh kumana tirsan inuu sameeyo laakiin haddana wuxuu sii afduubaa dhalinyaradii isboortiga usoo aadaysay isbartibada garoonka mishiibio garoonka hadda amazonta laga bixiyey stadium muqdisho oo ciidamo aad tababaro u socdo laakiin hadda ciidamadii laga bixinayo garoonka in la isla rabo garoonka stadium muqdisho ayaantan waxaa ka socday howlgal dhalinyarada dhan ee iskugu tageen iyo dadka reer muqdisho lagu nadiifinayay si dhalinyarada loogu dhiirigeliyo marka awood uma lahan dhalinyaradii inay iyaga inta isxilqaamaan haddana si amniya intay isku xilqaamaan ama degmadii inta u tagaan qarash ay ku geeyaan dhahan wadadaasa ku dhiseenaa ama ay ku dhahaan sidaan iyo sidaan wax u samayn karnaa waayo gudoomiyihii asagaa wuxuu arkaa caqabad xagga ka imaada degmada inay tahay si fiican marka runtii aniga ala dilaa dhinto horta cidaan ka baqaaya ma jirto laakiin muhiimadda waxay tahay degmo keliya ma ahan muqdisho waa 17 degmo waa 18 gobol waxaa iidana keliya qofkii maanta degmo kamida 17 degmo wax u qabanayo 18 gobol wax u qabanayo ama wax kusoo kordhinayo inaan taageero oo aan daba socdo xaq ayaan u leeyahay laakiin sida aniga aan dareemayo waxaa ii muuqato far keligeed foolma dhaqdo gudoomiyihii degmada maadaama hore oosan u soconin inta ka hooseysane sida adiga ismaaciil ahaan aaminsan tahay wax dhaqaaqa ma samayn karan ismaaciil gudoomiye waa gartay fariintaada ugu dambaysa aad dadka ku dhegaysanaya oo reer wardhiigley oo facebook aan u dirnay sawiradii wax dhan kuwa ku dhegaysan doona shacabka degmooyinka ku dhegaysan doona fariinta aad faras maxay tahay baaqa ugu dambeeya adrisa gudoomiye aniga ka fikir ahaan waxaan aaminsanahay degmada wartanimada waxaa loo doortay gudoomiye degmo gudoomiyaha degmadana wuxuu hoos tagaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xaq waxay u leeyihiin dadka deegaanka ah inay cabasho ay geeyaan gobolka banaadir ee dhahaan anaga dhibaatadaas iyo cabashadaas aan qabnaa laakiin waxaa muuqata xoogaa in xadiid oo jiro waa dareemi kartaa ninkii isboortiga yaqaano xagbood waxa la yidhaahaa jiro marka dhalintii iyo dadkii deegaanka ahaay xoogaa waxaa jirto waxa la yidhaha xagjiid midda kale gudoomiye waxaa jirto isgooska farlansa markii oo tago 15 May marka oo tago waxaa ka qiyaastaa dhinacan Siinaa markii loo soo rogo wadada isgooska Siinaa kabarada markii loo soo rogo ilaa iyo isgooska Faransa inta u dhaxayso waxay kamid tahay degmada Wardhiigley si fiican waxaa dhacday intaas deegaanka ku nool degmada wartanimada kamid ah weligeed inay gudoomiye degmo deeqo qofaan ahayn u soo xadgudbin u imaanin ha ahaato macaawino ha ahaato arrimo siyaasadeed ha ahaato arrimo amni qofaan deeqo ahayn inaysan weli aysla wadaagin marka dadka meeshaas degan waxay iska dhaacsiiyeen inay ka tirsan yihiin degmada boondheere si fiican ogeynba marka degmadii oo dhan ba aniga runta markaa kaaga hadlo degmadii oo dhan ba waxaa laga aaminsan yahay inay ka tirsan tahay masaajidka cabdaliya cawareer ilaa iyo degmada meesha ay ku taalo halahaasaaba degmada wartanimada laga aaminsan yahay aniga kula hadla hadda xamar jadiida ku noolahay isbartiibaan joogaa xarunta xisbigaan joogaa weli way ii dhiman tahay xamar jadiida dhacii joogtada ahaa ee dadka shacabka lagu hayay gabadhii xabadda lagu dhuftay maxaa maadaama hadda uu gobolka banaadir yiri ciidamo ayaan geeyey sidee dadkaas reer xamar jadiid ammaanka degmada ammaanka ay u heleen mise weli dhacya ayaa ka jira gudoomiye horta waa mahadsan tahay aniga cv-geyga adaa si fiican u haayo baraha bulshada inaan ka yeeriyo waa laga fiican yahay laakiin saacaddaas aan kula hadlo horta waxaan ku suganahay xamar jadiid meel yidhaha gambarada si fiican
meeshii la yidhaha gambarada waxay kasoo leexataa kabarada jaadka ilaa iyo sirgaduud ilaa iyo efeeko ilaa iyo saan laba dhagax waxaa horta kuu xaqiijinaa saacaddaas la joogo inay safe tahay dhicitaankii waxyaabihii dadka shacabka ah loogu xadgudbaayey guryihii loo boodayey waxyaabahaas horta dadkii ogaay xilligaas horta saacaddan la joogo way soo afjarmeen maasha allah midaasne anaa kuu xaqiijinayo waayo saacaddaas aan kula hadlaayo waxaan joogaa isgoyska laba dhagax daarabta afar degesan kaa tusi karaa saacadda aan joognana waxaa weeye 8:20 waaye 8:20 nin isgoyska laba dhagax joogo waxaa xaqiijin kartaa inay amni tahay isgoyska laba dhagax nin joogo si fiican laakiin annaga waxaa noo xaqiiqo ah haddii aan nahay mas-uuliyiin dowladda ka tirsan weli way noo dhiman tahay guddoomiyaha degmada weligey waxaan arkay maalin maalmaha kamid a isgoyskiis marixaan anoo joogo idoo baawur qooqana saaran aan meesha ku celiyey waa is aragnay hay guddoomiye bes weli waa ii dhiman tahay guddoomiyaha degmada iyadoo dhex joogto eriyadan axmed jadiid iyo sargaduud dhinacan gambarada ilaa efeeko eriyadaas isbartiibo marka runtii waxaan aaminsanahay xoogaha hoos u dhaca wuxuu ka imaaday dhinaca guddoomiyaha degmada waa mahadsan tahay bashka waan kaaga mahad celaa waqtigaaga barnaamijka fiidowga noo sheergare nala joog intii aan ka tegin hadduu ilaah yidhahdo waa mahadsan tahay guddoomiye sidoo kale thank you waxaan rabaa asxaabteeda sharafta iyo qiimaha badan inaan u sheego in dadkii degmada warta nabadda ay dhibaato aada iyo aada u weyn ay la soo daristay roobabkii magaalada muqdisho ka degay dadkii masaakiintaan guryaha u dhisnay in totaliba ay waddooyinay maraani waayeen in waddadii degmada ay xirmatay waddadii ka imaanaysay dhinacaan iyo furons ay xirmatay waddadii kaleo ka imaanaysay cabdilii cawreere ay xiratay biliis waxaynu ka codsanaa fiidowgaas ii sheergaraysiin waxaan rabaa inaan fariintaan ugu faro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waqtigii dadka la caburin jiro waa dhamaatay madaxweyne dadka waxaa la rabaa in loo shaqeeyo wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu sumaya cadday soo dhawow waxaan rabaa inaan fariinteeda ugu faro in dadka gobolka banaadir waa isku wada mid degmada wardhigilayna caawa ka hadlanaa degmooyin badan sida cabdicasiis kaaraan wadajir degmooyinkaasoo dhan roobabaa ka dacay wax cid bini aadan oo shaqadaas haysa habeeraatay ma jirto shaqadii dowladda hoose waa gaftay maamulka gobolka banaadir waa gafeen guddoomiyeyaashii la doortayba qaaraaba dalka jooginba guddoomiyeyaashii la doortay oo qaarna ku maqan holiday qaarna iska baxayba waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ay daawanaysa fiidowga sheergareeya waxaan rabaa inaan fariinteeda ku gaarsiiyo waqtigii dadka la caburin jiray waa la dhaafay haddaan naha anaka reer wardhigley waa tashananaa dal iyo dabadba waxaan rabnaa kuwa dalkii jooga inaan ku taageerno qarash ay ku dhistaan waddooyinkooda waxaan rabnaa inaan ku taageerno dhaqaale ay ku dhistaan waddooyinkooda annakoo dhallinyaraha insha allah hadduu ilaah yidhahdo waana arki doontiin hadduu ilaah yidhaahdo cid bini aadanaan uga aabiyeeli doona ma jirto waddadan lama dhisi karto iyo ma jirto waa dhisanaa waddooyinkan waa dhisanaa leefaf iyo tiifiyan waa geysan doonaa cid bini aadan oo naga hor istaagi doontana male waxaan idinka codsanaya fiidowgaas ii sheergaraysiin degmooyinka nin walba oo degmadu ku dhashay waxaa la rabaa inuu u istaago sidii ay u horumar lahayd degmadaas waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ay daawanaysa caawa barnaamijkan usoo galo waxay tahay dadkii masaakiinta dadkii buushashka ku jiray inay daadad iyo dhibaato iyo raashin la-aan iskugu darsatay ilma waxaa laysoo diray aad arkayseen oo dhiiqa ku dhex jiray waxaad arkayseen waddooyinkii ay iska dhex marayaan oo waddo waayeen buushashkii oo roobab da-ay dadkii aan u dhisnay guryaha waxaa la soo daristay dabaylo waddooyinkii ka xirmay raashin la-aan cid bini aadan oo u maqan male waxaa cod dheer iyo maqalba ku gaarsiinaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in dadkaan laga daayo caburinta waqtigii dadka la caburin jiray waa la dhaafay codurkan camerada kuma dalbana waxaan rabaa marka asxaabi bliis videogaas inaad sheergaraysiin 25 qofoodana daawanaysa waxaan rabnaa haddaa wada sheergaraysiin in 25 kale ay gasho barnaamij keliya waxaan ka rabnaa dadku inay ogaadaan in la soo jeedo waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maaha maamul gobol banaadir ma dhahayo maamulka gobolka banaadir ayaa raalli ka ah in dadka degmada aan waxba loo qaban sababtoo ah hadduu raalli ka yahay in wax loo qabto wuu kula xisaabtaminaa wuxuu dhihi lahaa degmo walba waxa aan qabatan la imaho isagoo la kaashanaya maamulkiisa gobolka banaadir ayuu dadka degmooyinka weydiin lahaa wax loo qabtay waxaan loo qaban
laakiin hadda waxay noqotay in guddoomiyuhu u sheego guddoomiyihii degmada uu yidhaahdo waa imaanayaa maxaa la dhahaa ii sheeg waa sidaas degmadiina loo sii diyaarinayo oo dad iyo meel la iskugu geenayo saasna dowladnimo kuma dhismayso buushashka degan adurqaanaye السلام عليكم أدبا كل سلام يا عزيز صاحبي أنت مش كنت تشتغل وكان صاحب وأنا لا سعتها nin dalkii joogana ma tihid barnaamijka maxaa labiya halka leedahay annaga waxaa ugu talagalnay dadka magaalada muqdisho jooga oo baahida qaba inay barnaamijka ka qayb qaataan صاحب وما سنت هذه أنت كنت تشتغل واحد شو أستراليا برنامج كاي ولا سعودي وعددك مساكين تكون عاون السي مركب حمر شوكت مقدش مركب شوكت ضد مساكين عادوا عاون السي بان aad uga helay laakiin Soomaaliyeed baa tahay waa ku mahadsantahay masaakiinta inay caawisid laakiin waxa nasiib darro ah oo weyn in dad masaakiin nin caawinaya in laga hor istaago oo la yiraahdo ma caawinaysid taas waa nasiib darro xun aan weligeed aan la arkin meeshii la oran lahaa waa mahadsantahay shaqo qaran baa qabatay waa ku mahadsantahay nin la yaraa baa tahay waa waxa la yiri adeer jooji waxa wadid iyo dadka masaakiinta aad taageeraysid dhibaataaba nagu tahay meesha la oran lahaa waxaa la soo diray waa dadkii aan caawinayay iyo dadkii xaafadda ii soo diray wadooyinkii dhan inay xirmeen oo dadkii dhiiqadii ay marayaan guddoomiyihii degmadana uu ka maqan yahay dalkaba wallahi ismaaciil aan waxaan kuu qorayaa inaad tahliyay Soomaaliyeed saa dadka masaakiinta u caawisay oo waqtigaaga siisay haddii lagu digayba waa fiicnaayeen haddii aan rag lagu soo dirin oo aan lagu dilin waxa fiican ba in lagu digo oo maaragtay lagu yiraahdo waxa sameyn taas waa waraynimo ma garat laakiin adoo meel maraya haddii lagu soo balaayo lagu soo diri lahaa oo saacada naftaada ku waayi lahayd barnaamijka ilaahay dartiisa taasi waa sharaf ilaahay hortiisa dhigtay iyo dadka masaakiinta ma garat saaxiib si fiican saaxiib meeshaas xamarna xagee joogtaa adii saaxiib hadda waxaan joogaa UK صاحب meeshaas hadaa ku noqonaysidna saaxiib socodkaaga yare siba focuska ku saaran yahay oo dadka masaakiinta Soomaalidu ma rabto qofka ilaahay dartiis dadka ku caawinaya ma jecla daacadii waa dhamaatay dadkii halyeeyadii Soomaaliyeed waa qaar qarax baa laayay qaar shafta ka mas'aada waa ku jeeda si fiican ma garat saaxiib laakiin gudoomiyaha gobolka Wardhiigle oo hadda ka sheekeynaysi warta nabadda sheegaya wuxuu arkay in uu gudoomiyihii gobolka uu waxa malaynaya uu halkaas uu maaragtay saaxiib kala yahay oo uusan cidna ka baqayn oo isleeyahay wax ku dacweynayaan jirin oo kula xisaabtamay Soomaaliya xisaab la'aan baa ka jirta qofka mas'uuliyadda loo dhiibay cid la xisaabtamaysa ma jirto qofkii hadda wuxuu iska dhigay qof dalkiiba ka maqan sida la sheegay oo wuxuu u baxayba aan la ogeyn oo dadkii degmada iska warhayn oo wadooyinkii xirmeen xilkii loo inmadaba waa ka tegayba miyaysan ahayn in qof kale xataa loo magacaabo oo xilkaas oo qof kale saaxiib waa sax laakiin saaxiib ninkaas waxa uu malaynayaa meel buu wax ka haystaa oo kalsooni ka qabaa oo iska tagtagaya oo diyaarad raacayo wuxuu isleeyahay meeshan waa gurigaaga saarabta ka yeel laakiin Soomaaliya daacadnimo ka jir ragii Soomaaliyeed oo wax qaban lahaana oo aad u kow ka tahay waa kuwa loo dhaaranayo la oranayo adar masaakiinta caawin hadaa caawirsan naftaada ku waysa ma garat saaxiib aad baan waxa kaaga mahad celinayaa barnaamijyadaada oo maaragtay maalin kasta ay ka hadashid iyo barnaamijkii Ramadaankii dadka caawinaysa Mareykan baan u joogay waa ku jeeday islaana caawinaysay oo isla markiiba guriga u dhistay nin qaaliya tahay Ismaaciil oo waqtiga iyo taariikhda ku xusi doonta laakiin Soomaaliya wax ma garad baa isku hartay dad wax ma garada Soomaaliya hadda haray qofkii la arkay in yar uu caawinaya waxa leeyahay qofka anagu naga dheereeyay qofkan anagu naga dheereeyay wax qabanaya see wax u qaban karaa jooji baa lagu dhahayaa wariyaa dadka masaakiinta caawinaysa waraanu masaakiin baa caawinay may anaga naga dheerays booska ayaa ku ciyaaraysaa waa Soomaaliya waxa ka jira kala darankeedii waxa la isku dilayaa waa dhuumaalaysi waxa la oranayaa ninka waa dheereeyay waa in la dilaa wax kale lagu dilmay waxa lagu dilayaa Soomaalinimada ay ka go'antay qabiilka aad rabin oo dadka masaakiinta aad baan walaa ugu faraxsanahay dadkii masaakiinta caawisay iyo wiilkii dharka aad u keentay iyo dadkii masaakiinta ajarkaas wixii hadda aan ka hadlanaba meelihii aan dhisnay waxaan u dhisnay waxay ahaayeen dadkii guryaha u dhisnay dadkii daadadka qaaday oo guryahoodii iyo hantidooda ku baabay haddana waxaa biloomay xilligii roobaadkii magaalada Muqdisho daadaa qaaday waxay ii sheegeen in wadooyinka qaar xataa ay iyaga isxilqaameen oo
jawaano carraa iska dhigdhigeen si biyaha u gelin laakiin hadda waddadii dheereed ee la mari lahaa ayaa xirmatay wax booyad u keenayo biyihii ka dhaaminayo ma leh cagafyo biyihii riixaya ma leh waddooyinka waa xirmeen carruurtii yaraa wasaqdii ku jirtaa ilmihii waxaa ku dhacay shuban biyood iyo wixii oo dhan guddoomiyihii degmada ma joogo dadkii degmada waxay dhaheen haddaan badan la qaadano waxyaabaha ugu nasiibka xun waxa waaye war annaka qof in wax noo qabto uma baahnine annakaa degmada iscaawinano oo ilaa 10kan cidba qof walba kaalintiisu qaadanaya mana loo ogolaba waxaa laleeyahay waa runtaa laakiin dhalinyarada sababta loo xirxiray oo la leeyahay hays ininka ha qabanina shaqadaas ma qaban kartaan waxa weeye problem ku jira waxa weeye haddii dhalinyaradaas ilaahay dartiis wax u qabtaan waxa la oranaya guddoomiyihii shaqadan loo wakiishaday mee isaga ceeloobaya ma uu rabo hadda inay dadkan ka dheerayaan mar rabo wuxuu rabaa meesha inay saa ahaato oo la yiraahdo maxaa saa ku dhacay waa wadnaa laakiin haddaan labadeenu tagno oo degmadii tagno oo ilaahay dartiis wax kasta u qaban guddoomiyihii waxa la oranayaa mee labadeena waa maqannahay ku sheego guddoomiyihii degmada holudaag 8 sano ka hor jacfar degmada holudaag ka dhigay degmadaas quruxda badan waxaa loo gartay oo ay dad xildhibaana u garteen in laga dhigo guddoomiyaha degmada dayniile within 1 day isagoo xilka hayn maalintuu xilka la wareegay isla maalinta ku xigtay wuxuu bilaabay cagaf iyo geedo jarow waxyaaba aan guddoomiyihii degmada markaas joogay uusan qaban ayuu bilaabay dadkii degmada dhan waa la yaabeen wuxuu yiri sharcigu soo saaray wuxuu yiri dadkii guryaha waa dhisan waayeen oo waa cabsoodeen because guri ciddii $50 ay jinkada inta kusoo dhisatay iyo 50 kale ku dhisa haddii la yiraahdo $100 keen ma awoodaan wuxuu ballan ku qaaday in degmooyinkaas guryahaas la dhisanayo without lacag laan ciddii lacag weydiisana ay soo wacaan af dheer iyo muuqaalo iyo tv intuu iskugu yeeray guddoomiye degmo lama joogin maamul kaloo degmo lama joogin shaqadii uu qaban jiray waagii hore ayuu ka bilaabay degmadii dadku waxay ku leeyihiin waaba soo daaday mar reed in lanoo dhiibo qofka noocaas oo kala degmooyinka loomaba dhiibo maxaa yeelay wuxuuba ku baaqay in guryaha dadka ay dhisan karaan in burcadii lagu arko meeshaas uu dili doono oo cidna u haysanayn wuxuu ku baaqay in degmadiisa qori lala soo geli karin in dadka degmada ay isku tashtaan oo geedadka ay falayaan wixii u bilaabay ayaa dadkii degmada annaka ma hayno marka guddoomiyaal noocaas oo kala waxaa lagu keenay gabadha aan qabo walaalkeed waaye adeerkee waaye hadda saaxiib problemka jira Soomaaliya waxa weeye dadka aqoonta lahaa professionalka hawshan u ahaa loo dooranayo waxa loo dooranaya qof aan hawshan aqoon oo waxba ka aqoon ba waxa loo geeyay ayeeday baa dhashay hablartay baa dhashay abtigay baa dhalay baa booski loo geeyay ninkiina booski wuxuu isku arkay inuu mihrada leeyahay been buu qodqodaya markuu qodqodo wuxuu leeyahay meesha aan waa sameeyay hadhow Cabdulqaadir ka dhaxgalo hal baabuur oo dawladda hoose ee gobolka Banaadir ay siiday ninkaas ma jirto cagafyada isaa keensaday kuwa qashin qaada isaa keensaday in uu lacagtiisa iyo mushaarkiisa uu ka jaro ayuu ugu talagalay sida ay dadka ay bari u jeclaadaan oo mustaqbalka u noqdo qof dadka iyo dalka ay jecel yihiin dadku waxay ku leeyihiin marka la sheekaysto guddoomiyaasha qaar aad tiraahid sida aniga hadoo kale markii degmada xamar jajab oo kale oo koobkii degmooyinka dhalinyarada degmada aan ku qabananay qashin dhan oo meel yaala ayaan dhan waxaan baryaynay maamulkii degmada iyo gobolka Banaadir in naloo keeno cagafyo iyo baabuurtan laga qaaday arkaysa leef soo geliyay wuxuu ku leeyahay maamulka nin wax baabuur ma haysano cagaf hadaan wacnan wuxuu ku leeyahay $300 hana siiyo maalintii ma rabaan marka inay $300 dhiibaan marka ninkan inuu intuu qarashkiisii isaga bixiyay oo isaga iskiis geedku u falay guddoomiye degmada lama joogin maamul degmada lama joogin waxaad dareemi kartaa inuu ninkan sidiisaba yahay nin hoola oo raba inuu dadka marka guddoomiyaasha degmooyinka maba ahanba kuwa u samaysan inay iyaga intays xilqaamaan ay gaariga wacdaan wuxuu ku leeyahay qofka ugu dhan maamul gobolka Banaadir aan ka suganaa booyado aan weydiisan war sidee booyado u weydiinay booyado waa $50 intaa wactid biyahan qaad ma tiraay degmada canshuurta aad bixinaysid maamulka kula xisaabtan booyadan waxay qaaday wada hebel oo sawir ka qaad tus adiga shaqadii isxilqaam oo adigii dadkii ganacsatada degmada waxay diyaar u yihiin qarash dhiibaan inay maamulka la shaqeeyaan laakiin maamulka ayaa reebinba inuu hawshan qabto Ismaaciil maaha maamulka inuu sarreeyay waxa weeye problemka dadka meesha loo dhiibay baa shaqada aan aqoon sida loo qabto qof hadda aan shaqo aqoon hadii aan maanta inta gaari ku keeno aadan daro walahayn aan kura gaariga kaxee miyaa kaxayn kartaa gaariga experience hada walahayn waa kaxayn kartid waa furaha kuma wayna furaha marka ku rogto gaari wuu boodaya because gaari markii geerka laga saaro oo ma aragtay Soomaha
laakiin haddaa kuna gaari aan kaxay ma kaxayn karto dadkan loo dhiibaya degmooyinka dad professional maaha xifrad uma laha waxba uma laha kulligood waxa lagu keenay adeer iyo abti iyo wixii waxa isku qabaan hadda inay meesha leeyihiin oo ayagu iska leeyihiin waxa weeye marka hadda waxaan kula talinayaa dadka experience-ga u leh shaqooyinkan in loo magacaabo oo qof walba la jeekimo oo wiigii maalin loo yimaado laakiin gudoomiye gobolka banaadir laftigiisu khalad buu ku leeyahay because dadku meesha u magacaabayo waa inuu kula xisaabtamaa uu yidhaahdo adigu maxaa taqaanaa laakiin hadduu yidhaahdo iyaday baa dhashay habartay baa dhashay ogow aakhira waa loo qabsanaya oo la amriga oo taliya aakhira waxaa la odhanaya waddankan maxaa ka qabatay jagadaasaa qabatay intaasoo qof baa lagu dilay maxaa ilaa intaa u dan laheyd ciyaar maaha ciyaar mas-uuliyaddu maaha ma garata saaxiib laakiin ninka aad sheegaysa waa nin fiican waa nin ilaahay yaqaana waa nin samcad aakhira iyo adduunba raadinaya laakiin nin ku dhahaya anigu booyad baan dooranaya booyadda uu $300 ka bixinaya jeebkiisa kama bixinaya degmadu ka saaraya wuxuu ka saaraya waa degmada soo maaha waxaan wax jeebkiisa ka imaanaya maaha aduu haddaa maanta canshuurtooda waa in dib loogu celiyo cashuurtii xataa maamulkii maanta diyaar u yihiin in contribution ay dhiibaanoo ay iyaga iska aruuriyaan $20 $30 iyaga ganacsatadii ab diyaar ah in dhiiqada xataa iska qaada laakiin lamaba ogolaba in la qaado dhiiqada anu ismaaciilo anu maanta waxa oran lahaa degmadaas haddii maanta wallaahi adi lagu dhiibi lahaa iyo bilaahi iyo tollaahi daacadnimadaadan ogahay inaad degmada horumar maanta ka soo saar lahayd anoo aan ku aqoon oo social media kaa bartay laakiin daacadnimadaada waxaan ku arkay saaxiib oo aan kugu aaminay dadka masaakiinta oo u gargaartay oo aad sidii walaalka oo kale ugu gargaartay baan kugu aaminay waana ogahay inaad hawshaas iyo hawl ka mid ah ka bixi lahayd waxa u qalanta in laga dhigo duqa magaalada muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka meesha uu yiriisoo joogo oo u qalanta wadanka waxba ka bedeli kartaa dhalinyarada ugu fiican Soomaaliyeed baa tahay oo hankooda uu ka weeyahay qabiilka iyo jeebkooda iyo in wax la hado laakiin maaragtay mas'uuliyiinta degmooyinka loo dhiibay kulligood waxay laayihiin wax la xisaabtama wax ku shaqeeyay laayihiin gudoomiyihii gobolkana wuxuu ka bixilayaa siyaasad oo maaragtay hebel baa saa yiri iyo hebel baa saa yiri iyo xildhibaan baa saa yiri iyo maaha waxa la rabaa inuu degmooyinka la xisaabtama uu yiraahdo hebel degmo maxay caawa qabatay degmo kale maxay qabataa waa inay report ka keenaan degmooyinka waa inay report keenaan yiraahdaan maanta waxaasaa dhacay biri waxaasaa rabnaa laakiin meeshaan saaxiib Soomaaliya ayadaa is hagratay ayadaa halkaas dhigtay laakiin Soomaaliya ilaahay ilankiisa dhalinyaro Soomaaliyeed oo adigu ka tahay waa soo baxaya insha Allah laakiin ninka gudoomiyaha ah oo warta nabadda u ah oo la yahay shamooyin waa la yahay isku xishood waa wax adig ka jiran waa wax aad ciyaalkaaga aad yeeshay wax aad dadkoo dhan ay yeeshay maaha waa taariikhda aad meel xun ka geli doontaa insha Allah laakiin waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa inuu hawsha wax ka qabtaa oo u jeeda saaxiib waxaan u jeeday meesha qashin qubka loo maleeyo oo aad maleynaysid inaysan bilaadan ku noolaan iyo dadka dhalinyarta waxa nasiib darro ah oo ka sii xun waxa ah cudurka iyo balaayada iyo maaragtay waxa ka imaanaya fayraska meesha ka imaanaya hadhow yaa sababteeda leh oo aakhire la weydiinaya waxa weeye gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka kan degmada hadda haysta ilmaha yarka hadda hadduu cudur qaado uu dhinto yaa la weydiinaya aakhir isaga koow ka ah oo mas'uuliyadiisa qaaday waa inuu cunuga hadda biyaha cabaya oo fayrus ku dhacay waa inuu ogaado sugu seexdo waa inuu ogaado dhibka haysta waa inuu ogaado caafimaadka haysta waa inuu ogaado wax kasta laakiin saaxiibda mas'uuliyad waa la iska qaaday laakiin mas'uuliyad wax lagu degdega maaha dawladana waxaan leeyahay waxa u dhaarateen dalka iyo dadka iyo diinta weeye waa inaan qofkii aan boosheeshkiisa ka soo bixi karin waa inaan qof kale boosheeshkiisa ka soo baxay la geeyo laakiin dad iska seexanaya oo gudoomiye degmo iska baxaya meeshaba meherad baa uu leeyahay isagu saaxiib Cabdinaasir meesha dadka leh lacagtan uu waxa la rabay intuu jay qaato ama maaragtay ciid inuu biyahan mooso oo maaragtay uu aad u hagaajiyo jeebkiisa wax ka soo baxaya ma waa cashuurtii dalka uu dadka ka qaadiyay weeye maaha jirkiisa wax laga jaray saaxiib waa cashuurta uu dadka ka qaaday haddii cashuurta barnaamijkaagana saaxiib aad u wada habeen iyo maalin basaa wadanka uga sheekay waana ku maasan tahay salaamu calaykum saaxiib calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa wiil aad iyo aad dhalinyarada Soomaaliyeed ee fikirka saliimka leh wax badan fahmi kara waxaan ka codsanayaa asxaabi cid walba oo
qadar waa kuu jeedaa walaalkay macaane samiira dadka asxaabta dhan soo wada galay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa idinka qaaday asxaabtayda waxaan idinkugu bishaareynayaa insha allah hadduu ilahay yihahdo dhalinyarada soomaaliya way tashan doontaa cadaaladaa imaan doonta hadduu ilahay yidhahdana waad arki doontiin dhalinyaro badan oo u kacday dalkooda dhalinyaro badan oo u kacday degmooyinkooda waad arki doontaan hadduu ilahay yidhahdo waxaan leeyahay niyajabin hal gacmaha la isqabsado dhalinyarada degmadooda raba inay nadiifsadaan oo laga hortaagan yahayna insha allah waxaa imaan doona guddoomiyayaal aad ku farxi doontiin oo aad la shaqayn doontiin shaqooyin inii abuura in kala shaqeeya degmada amnigan kala shaqeeya caafimaadkan kala shaqeeya dadka xanuunsan wax u qabta dadka masaakiinta ay hadda daadad ka qaadeen oo aad inii soo bandhigayay wax u qaban doona ayaa la heli doona hadduu ilaah yidhaahdo insha allah asxaabay hal dulqaad hala sameeyo waxaan marnaba aan aniga ka aamisi doonin degmooyinka waddooyinka xirxirmay sida cabdicasiis kaaraan yaaqshid boondheere guddoomiye maanta aan arkaayo aan jacfar ahayn oo isxilqaamay oo wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi inaan jacfar isku qabiilahayn inaan jacfar weligay wada shaqayn waxaan ku arkay wax qabad muuqda maanta markii uu holodaag joogeen wax fiican u qabtay markii daynian loo dhiibtana maanta wax fiican u qabtay waa ku dhiirigelinaya mudane guddoomiye jacfar waxaan ku leeyahay adiga iyo maamulkaagaba hore u socda dadka dayniile waxay kaa sugayaan waxyaabihii dadka holodaag ay kaa barteen waxaan leeyahay furtuun maasha allah waxaan ilaahay ka baryayaa in dhalinyarada soomaaliyeed ay noqdaan kuwa ka dhiidhiya runta dhalinyaro badanaa la caburinaya oo loo diidan yahay inay degmadooda horumarkooda iyo ka shaqeeyaan nadaafadooda iyo laga hortaagan yahay guddoomiyayaal ay shaqo ku lahayn oo degmada ku dhalnaan loo keenay inta i daawanaysa iyo daawan doonto waxaan leeyahay insha allah degmada warta nabadda dhibaatadu way ka bixi doontaa madaxweyne farmaajo iyo kheyre waxaan leeyahay afartii sana aad joogteen reer degmada warta nabadda codkuma heli doontiin hadduu ilaah yidhaahdo insha allah wayna dhici doontaa inay u codeeyaan madaxweyne kaloo cusub sida ay reer warta nabadda kugu hiiliyeen maalintii lagu doortay maada uga hiilin waxaad u keentay guddoomiye aan u qalmin degmada waxaad u keentay dad aan maamulka degmada shaqo ku lahayn dadkii waa dhiban yihiin agoontii waa dhiban yihiin dadkii masaakiinta waa dhiban yihiin waddooyinka warta nabadda oo hore loo dhisay ayaa hore u burburay kuwa in la dhiso iska dhaaf kuwii dhisnaa ayaa burburay marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare codkayga waxaan kugu gaarsiin doonaa dadka reer warta nabadda oo aniga igu xiran ama kuwa degmada deganba insha allah waa kuu jeedaan sida aada ugu hambayseen insha allah cadaaladaa imaan doonta dadka warta nabadda degan ee dhibaatada baaxadda leh lagu hayo insha allah samiira maasha allah taabid insha allah iyo kuwa lamidkaaba oo waxqabad muuqda la yimidna waa taageeranaa cid walba oo waxqabad fiican la timaadana waxaan leenahay ilaahay hortiisa in yaalan taabid waxa uu geystay aakhiriya adduun meela u yaalaan yariiso waxa uu geystay aakhiriya adduun meela u yaalaan waxaan leeyahay farmaajo iyo kheyrow degmooyinka waa dhiban yihiin degmooyinka gobolka banaadir waa dhiban yihiin dad wareersan oo aan maamul waxba ka aqoon layska keenay dadka caburinaya degmadii iska xiranaya gurigay leeyihin ka dhigteen dadka ay raashinka u qaybinayaanna iyo keensaday iyo lama rabin waxaa la rabay in dadka buushashka intii loogu tago saf la geliyo calaa guri loogu geeyo in guri walba in la tago oo loogu geeyo calaa guri degmada sidaasay cadaaladeeda ahayd laakiin in konton qofood la isku keeno raashin kalena la gato cadaalad darro waaye dadka masaakiinta xoolahooda kuwa cunan waxaan leeyahay maalinta aakhiro waa lainsoo istaajin doonaa maalinta aakhiro waa lainsoo istaajin doonaa waxaan leeyahay reer wardhiigley insha allah dhibaatada waa ka bixi doontiin waa inii taaganahay habeenii maalin waa inii taaganahay caawintiina u taaganahay garbistaankiina u taaganahay insha allah intaan qurbaha joogan waxaan isku dayi doonaa in dhaqaale degmada ku filan aan soo aruuriyo oo aan degmadaas ku dhisatiin oo aad dadkaas masaakiintana guryo ugu dhisi doona hadduu ilaah yidhaahdo inta ay nafta igu jirto intii sadaqa baxsanasana waa u tegi doona hadduu ilaah yidhaahdo dhibaatadana waa ka bixi doonaa marka dhalinyaradii sawirada iisoo diray waxaan leeyahay leefkayga waa arki doontiin sheergareeya waxaan rajayn doonaa insha allah guddoomiye dhalinyaraha oo degmada ku dhashay degmada yaqaana wax u sheegi karno la shaqayn karno wax un tusi karno dadku qaar ma rabo aniga iyo guddoomiyaha degmada joogna hadda waxaan isku nacnay because sababta wax uu qabanayo anigu raalli kamiya isagana wax aniga aan rabo in la qabto raalli kama aha saasaan wada shaqaynteenu ku baaba'day anigu waxaan rabaa lamber kow dadka masaakiinta degmada degan in guryo loo dhiso dadka masaakiinta ee degmada degan in raashin loo keeno
dadka masaakiinta ee degmada degan in caafimaad la siiyo dadka masaakiinta ee degmada degan in isbitaal la geeyo in MSHka degmada la weyneeyo dhaqaatiir la keeno dadka caafimaad meeshaas loogu fidiyo ayaan u baahanahay laakiin isaga uma baahna taas ayaa aniga isagana kala waday dadka iskala fahmi waxaan ula shaqayn waaya intaan dalka joogo oo aan ula shaqeeyay guddoomiyaashii ka horreeyey degmada aan joogay aan ka maamuli jiray waxay ahaayeen dad wax loo sheegi karo habaq iyo isqaadan hadday rabaane dad wax loo sheegi kara ayay noqdeen laakiin gabadhaan hadda guddoomiyaha degmada ka ah qof wax loo yeerin kara ma aha qof aqoon dheeraada degmada u leh ma aha sidaas awgeed kama bixi karto degmada waxaan leeyahay marka please videoga ii share gareeya youtube-kan waa gelin doonaa dhalinyarada gobolka banaadir waxaan leeyahay insha allah degmooyinkiina waa dhisi doonaan kuwa kaaraan degan kuwa cabdicasiis degan insha allah guddoomiyaal degmooyin oo waxaa laynii keeni doonaa oo aad dooran doontiin insha allah dhibaatadan waa laga bixi doonaa dalku burbur uu soo galay maantana meesha maraya waa ujeedin dhibaatadan waa laga bixi doonaa kuwa u yimid inay hantida shacabka cunaanna akhriya adduun ilahina waa la xisaabtamaa dadka degmadana way la xisaabtami doonaan hadduu ilaah yidhaahdo dad la cafin doono maaha dad adduun iyo aakhiraba aan daba taagnaan doono waay waxaan leeyahay marka dadku cadaalad ma rabaan qof wax qabanaya cid bini aadan oo rabta male wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaa lambar one ka ah sida dadku ay sheegayaan ama ay hadda soo qorayaanba guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabit wax muuqda ayuu qabtay war dadka haddii dalka wax looga qaban waayo haddaad 5 qofood qaadda xataa waxaa qabatay hal qof haddaa qaadda xataa waxaa qabatay lama rabo asxaabay bliis waxaynu ka codsanayaan videoga share garaysiin dad badanaa daawan doona youtube-kan gelin doonaa youtube-kayga kala socon doontiin adduun goobe waa youtube-kayga hadduu ilaahay ramad FG Subeer qanciya waa ku salaam walaalkay macaani waxaan leeyahay marka reer wardhiigley insha allah dhibaatada waa ka bixi doontiin garoonkii istaadi muqdisho waa layni furi doonaa istaadi manashibiyan waa layni furi doonaa wadada manashibiya joogtana waa la dhisi doonaa midda cabdilaahi cawreere martana waa la dhisi doonaa ta madaxtooyada martana waa la dhisi doonaa hadduu ilaahay yidhahdo dhallinyaraha kici doonta guddoomiye degmo oo fiicanaa imaan doona insha allah cadaaladda waa dilaaci doontaa laakiin guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay shacabka soomaaliya waa inay fiirsanayaan adduun iyo aakhirana hooyooyinka dhibaataysan adigaa maanta adigay maanta aabba ku leedahay dadka dhibaataysan ee degmooyinka ku dhibaataysan adigaa mas-uula adigaa u dhaartay waxaan leeyahay marka insha allah dhibaatada dadka masaakiinta degmooyinka ku haysatana waa laga bixi doonaa waa layna caawin doonaa insha allah fariinta aan gaarsiinaya waxaa waaye dadkii masaakiinta oo aan caawiyey iyo kuwa iga sugaya caawinaadana insha allah waxaan leeyahay waa ini garab taaganahay waa inii soo noqonay hadduu ilaah yidhaahdo insha allah waxaa imaan doona guddoomiye aad ku qanci doontiin shacabka degmadana ay iskugu soo bannaan bixi doonaan aad arki doontiin shacabka degmadoo dhan maaha 10 hooyooyin oo agoona degmada lagu hayo oo maalina banaanbax loo wado lacagtoodana aan la siin maaha waxaanu tusi doonaa ganacsato aqoon-yahano dhalinyaro degmada intay u kacdo dhisanaya ka shaqayn doona insha allah degmada warta nabadda waxay noqon doontaa degmada ugu horumarsan degmooyinka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo ku soo noqon doontaa waddooyinkeedu quruxda badnaa waddooyin wada dhisan oo wada jaay oo laami la mariyey oo dadka degmada ay dhistaan maaha in gacan islaameed laga sugo maaha in gobolka banaadir laga sugo insha allah dadka qurbaha joogana anigaa inii jooga dadka gobolka degmada degana waxaan leeyahay aan iscaawino oo degmadeena aan ka shaqayno hal qof berituu baxaya guddoomiyahan degmada waa baxaya yaasiin shalay waa joogay gabadhaan maanta waa joogtaa i baxasaa waxaa imaan doona oo mar walba niyaddeeda ku jirta guddoomiye degmada ku dhashay ayaa imaan doona aan la shaqayn doono oo waxna la qaban doono oo aan garab ku siin doono hoosha degmada ka socoto laakiin dadkaan ma ogola in la caawiyo in lala shaqeeyo ma ogola waxay rabaan in aan dadkaan masaakiinta degmooyinka laga soo saarin waxaan ballan in kuu qaadaya hortiina hadduu ilaah yidhaahdo in dadka masaakiinta ee degmada dhooban in aad arki doontiin 10 iyadoo dhaqaatiir loo geyn doono hadduu ilaah yidhaahdo isdoono sameeraya هلا السلام عليكم أبو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو برامج كوالي سعودة ومالينا ها ولا سعيدة والله هرت أني أهان هرت أذي هرت بيل في عناتها ما شاء الله وكسود وينها
tan labaad وعليكم السلام waxaa dooran lahay taabid inuu muqdisho uu madaxweyne ka noqdo إن ama شاء ra-iisul الله wasaare ma fahante كيف يعني aan u rajeynaya insha allah ودو إلهي يراد marka هلا سميرة أتكاك حنا عمرنا هلا عمرنا سميرة ولا صومعي مركب وحنا لا يهي إن شاء الله dadka gobolka banaadir degan waxaan leeyahay dhibaatada meel walba ay ka jirto degmooyinka waa soo tirin doonaa waa suuraa inii soo diri doonaa barnaamijyaan inii diyaarin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo aniga hadday 5 qofood i fiirsanaysa xataa fiidoogigaas all adduunka laga daawanaya ku qanacsana ingu jirto waa inii qaylinaa dadka masaakiinta ee degmooyinka degan maaha waxaan u qaylinaya ganacsatada waxaan u qaylinaya waa dadka degmooyinka degan ee ku dhibaataysan degmo walba kaama ku yaala kuma wajirtaba kaxda kuma wajirtaba kaam weyn oo 200 qofood ku jirtaa joogta waxay u baahan yihiin dadkaas caafimaad u baahan yihiin waxay u baahan yihiin tendooyin u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in caawinaad degdeg lala gaarsiiyo please waxaan ka codsanayaa dadka idaawanaya ama idaawan doona fiidoogaas inaa sheergaraysiin dadka wardhiigley degan waxaan leeyahay niyadda dhista dadkii sawirada ii soo diray dadkii facebookyada sawirada dhigay waxaan leeyahay insha allah dhibaatada waa laga bixi doonaa dhibaatada waa ka bixi doonaa gacmaha isqabsan doonaa shacab isjecel degma isbartibadii oo naloo furay tiimana shiibi oo naloo furay wadooyinkii dhan oo dhismay insha allah hadduu ilaah yidhaahdo cid walba oo idaawanaysa ama idaawan doontana waxaan leeyahay fiidoogaas sheergare si asxaab badan inuu arkaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shacabka gobolka banaadir say inu kugu heliyaan ma inugu helin anaa inii sheegan safiya maasha allah taliil maasha allah marka waxaan leeyahay dadkaas masaakiinta sida ay dadka gobolka banaadir say inu kugu heliyaan may waxba magu qaban taabid waa ka ceeriseen guddoomiye kalaa u keenteen waxba ma qaban guddoomiyaal degmooyinaa la keenay waxba mayse qaban dadkii waa sii baahan yihiin waddooyinka waa sii burbureen meeshii uu guddoomiyihii hore madaale u gaarsiiyey taabid uu ka kaxeeyey oo waddooyin badan la furay maanta yiriso markii la keenay waa burbureen maanta wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu maryan maanta markii yiriso la keenay waa burbureen waa sabab idinkaa layna weydiinaya guddoomiyaal degmooyin oo waxba qabanayn ayaa garab u siman war qofka xataa ceebtiisa waxaa qarin kara jacfar oo kale qof iskiisa wax u qabanaya saakuu soo kacay degmadii shirka ma socdo gobolkii waa soo kacay degmadiisuu gaaray wuxuu yidhi waddooyin aan xaqaya coosaskaa dhan waa fujinaya waddooyin waaweynaa degmadii ka soo baxay reer dayniile waxay hadda ku socdaan degmooyinka qaar nalal basaskii oo waddooyinka ka shaqaynaya waddadii oo la nadiifinayo amniga oo ku soo noqday degmada dilalkii tirada badanaa oo ka yaraaday qofka shaksigaa ayay ku xihan tahay marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee idaawanaysa ama idaawan doonta please waxaan ka codsanayaa inaad fiidoogaas noo sheergaraysiin waxaan leeyahay dadka gobolka banaadir degan dhibaatada waa ka bixi doontiin degmooyinka dhibaatada waa kala saameysaa aniga intaan ogahay degmada wardhiigley dhibaato weyn ayaa ka jirta sida dadku ay iisoo warinayaan dhibaato weyn ayaa ka jirta waxaan codsan lahaa oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ka codsanayaa hadday dhowdahe baashka gaara hadday dhowdahe shacabka weliba kalsoonida waa inii qabaane kalsoonida shacabka soo celiya la imaado guddoomiyaal taya leh la imaado dad in la shaqayn kara wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi dadku waa dhiban yihiin dadku waa dhiban yihiine ilaahay waxaan ka baryaa in dhibaatada ilahay ka qaado dadka masaakiinta ee degmooyinka degdegan waa in lala gaaraa raashin waa in lala gaaraa daawooyin waa in lala gaaraa baco roobabkii aa biloomay degmada hodan degmada cabdicasiis kaaraan kaxda warta nabadda holudaag waxaasoo dhan degmooyinka dadkii deganaa daadada qaaday ma haysaan baco ma haysaan raashin waxaan leeyahay dadkaas ha la caawiyo biliis gurma degdega lala gaaro madaxweynaha ra-iisul wasaarahan u baaqaya anigu cid kale aan aniga taageersanaya ma jirto labadaas ayaa fariinteeda gaarsiinaya shalay ninkii inii banaanbaxa ayaan ahay shalay ninkii taageersanaa ayaan ahay maanta laakiin sidaan filaayay ma noqon waxaan filaayay guddoomiyayaal ininkoo kalaa dadka unaxaya shaqada qabanaya
kuwaan haddii wax loo sheega xataa waxay qabanayaan maayo kuwaan haddii loo sheego xataa waxay qabanayaan maayo war sidaan aniga kuwii degmadii aan ka shaqaynayo kuwii joogaa yidhi shaqadan jooji war see wuxuu jiraa markaa irin waxaa la yidhi shaqadan meeshaan ma looga baahno shaqadan adiga taadii maaha haye maxaa dhacay dadkan masaakiinta haddaan caawiyo oo aan degmada dadka masaakiinta aan caawiyo ma wax dhibaataa ku jirto ma yaali dadkan masaakiintana meesha iskaga jiraan ala rabaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun bliis waxaan ka codsanayaa fiidowga sheer gareeya hadduu ilaahay barnaamijkaana beris subax hadduu ilaahay yidhaahdo liveka xigana iyaduu noqon doonaa in dadka degmooyinka degan ee gobolka banaadir in gurma degdega lala gaaro degmooyinka daada ka biloomay xilli roobaadkiyaa la galay hadduu ilaahay yidhaahdo waxay u baahan yihin baco waxay u baahan yihin raashin waxay u baahan yihin waddooyinka in loo furo fariinta aan gaarsiinayo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay dadka gobolka banaadir degan waa in gurma degdega lala gaaraa maxamed cabdi wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu bliis dadkaas baahi iyo daawo iyo waxaa iskugu darsoontay iyo waxasoontay caafimaad daro baca ma haystaan raashin ma haystaan waddooyinkii ay wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo khayr allaha ku sii wiil mar kastaba dhibaatada oo dadka u taaganaad tahay oo muslimiinta khayr allaha ku siiyo walaalo gabadhii daraad adiga hooyadii aa soo gelinaysay oo carruurta haysatay lifekaas aniga mar dambaan arkay markaan islaantaas xaggay ku dambaysaa abayo nairobi joogtaa lacaga qaar waa la gargaarsiiyey qaarna waa loo ballan qaaday marka shalay aan la hadlay xaaladoodu way fiican tahay hadduu ilaah yidhaahdo life dambana waa ku celin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo xoogaa dhaqaalay heshay oo gabdhaha nairobi jooga iyakaa xilqaamay oo u tegey marka hadda insha allah bal waxay sugaysaa hadduu ilaah yidhaahdo ma fahamti insha allah walaalo insha allah dadaalka waad odaay meesha ka sii wad beenta maaha dhibaatada way badan tahay xamar waan arkay oo ani horta ma joogi soomaaliya laakiinse waxaan arkay fiidooyadaan arkay oo lasoo geliyay dadka masaakiinta oo dhibaysan oo reeraha ayuu sheegay hooyooyinka oo agoonta looga tagay oo waxba aan haysanin oo mara yar iskaga hoos jiraan in wax loo qabto horta aaday u fiican waxaa tahay jirta meel weyn oo aan dad guryo uga soo dhisay 3 qofood gabar 4 carruur agoon haysatay nin oo ilmo rajay haystay oo isagana shaqadii gabay oo ilmihii haystay nin 10 carruur haystay oo isagii indhaha lahaa guryaan usoo dhisanay dhakhaatiiraan geenay korontaan usoo xirnay raashinaan u geynay iyakii ayaa sawiradii iisoo diray iyo dhalinyaro kale oo xaafadda degan waxay iisoo direen degmadii oo roob waddooyinkii xirmay dhalinyaradii carruurtii dhalan dhiiqadii sabeynaysa weli cabashadii iyo waxyaabihan guryaha ugu dhisanan waxay ahayd in daadadkaas ay bal ka badbaadaan haddana xil roobaada la galay dadkii masaakiintii waddooyinkooda dhan waa ka xirmeen marka meelay maraanna ma haystaan raashin iyo baca iyo midna ma haystaan beenta ma aha walaalo waa roobna wuu do-oya oo hadda soomaaliya maasha allah oo dadka dhibaatada haysta oo guri aan haysanin aan iisha meel ay hooy fiican ay haysanin oo carruurtooda waxay siiyaan ay haysanin maryan meeshu roob ka do-o kaneecada waa ogtahay ma dhaafaso dhiiqada xataa biyo nadiifa maaha baabuuraa marasa bajaajaa marasa meeshii wasaqdii iyada dhan dhiiqay noqotay ciyaalka waa iska dhex sabeynayaan oo bahalaa ka wada dhashay kaneeca ka wada dhashay waxay u baahan yihin in laga dhuuqo booyado loo diro anigana hadda dalkii ma joogo haddaan joogi lahaa anaa booyado u keeni lahaa marka cabashooyin iyo dhibaato aad u badan ay soo tebinayaan dadka masaakiinta degmooyinka degan beenta maaha walaalo in loo kaco way fiican tahay laanno adduunka keliya wax lagu yahay oo dadka muslimiinta oo walaalaha oo dhibaysan qof kastaba oo dhibka haysta in dhibka laga bixiyo ilaaha dhib qaadi karee bilowaadan dhib ma qaadi karee laakiinse in loo istaago oo wax loo aruuriyo oo wax loo qabto wallaahi waa ra'yi aad u fiican khayr allaha ku siiyo wiil waxaa tahay mar kastaba dhibaatada dadka u taagan insha allah waan kuu soo duceynaynaa laakiinse meeshii oo wax looga soo diri lahaa iyo waxaasna dabcan adaa noo soo sheega qof kastaba wixii awoodiisa ah waan kugula raacsanaa in dadkaas hooy la dejiyo oo ii sheegday ilmahooda ilaaha wax badbaadin kara oo ilmaha loo badbaadiyo ama dhiiqadaas rag loo diro oo la yirahdo balbooyada hal raadiyo halaga xaaqo inkastay hadda dhalinyaradii maanta aan la hadlay ay sheegeen in ay iyaga laftigooda diyaar u yihiin inay shaqadii qabtaan oo ama ay waddooyin samaystaan oo ay qaar ciid iyo wax ku shubaan laakiin la ogolayn in waxa maamul aan ka socon inay biyaha meel ka mida degmada
ay ka shaqeeyaanba maxaa dhacay maxaa looga diiday waayahe dad lama ogola masaakiin lama ogola in dadku ay shaqo qabtaan because haddii dadku shaqo qabtaan maamulkii degmada maamulka gobolka arkaayo iyo dowladdii arkasa waxaa la leeyahay qofkan wuxuu qabanayo male xilka qaadis marka dantiisa ayaa meesha ku jirta in dadku aysan waxba qaban wallahi horta waxaan leeyahay inaa lillahi waa inaa ilaahi raajicuun qof dhinta keliya looma dhehee dhibaatada adduunka yeesho way badan tahay hadda waxaa la iisoo diray soodaa la iisoo diray 5 wiil oo ku xiran oo liibiya waxay dhaheen godaan ku jirnaa mana garanayn meesha anaga aan joogno duco keliyay soo dalbadeen wiilashaas insha allah ha loo soo duceeyo marka insha allah walaalo garabkaaga taagannahay oo insha allah waa wixii la qabanayo diyaaran la ahay ani maryan ahaanteedii sheerna waa kuu dhahay insha allah sheerna waan kuu dhahaa maya dadkii wax qaar wax ma qaban karaan in lacaga la gaadsiiyo maaha dadkii dhiiqadiiba ma iska qaadi karaan oo booyada hadday timaado dhiiqada qaadaso waa la qabsanayaa booyadda waa la xirayaa qofka ugu horeeya booyadda markaa dalbato wuxuu ku leeyahay maamulka degmada ma ka socotaa adiga may daafacsaa haddii meesha la yimaado oo dadku way cabsanayaan oo waddada ma iska dhisi karaan hadda waddooyinkii ugu waaweynaa ee degmada wardhiigley way wada xirmeen totally tii ka imaanaysay isbartiibo oo madaxtooyada soo aadisay waji jabeen tii cabdilii saakan u jeeda gabar oo bajaaj oo ay lahayd bajaajka ay la dhacay meesha wasaqda iyo dhiiqada iyo wallaahi waxaaba ka dilaacaya ii sheegday daacuunaaba u dhow in ka dilaaco oo haddana masaakiintaas qofka hooy galaayo oo guri haysta waaba caadi laakiin dadkaas buushashka u dhisan oo aan cid aan ugu maqnayn ilaaha u maqane insha allah kuwaas bal ha la caawiyo khayr allah ku sii walaalkaygiyo leefkana kuma dheeraanaya insha allah waqti dambaan ku jiraa xagee joogtaa maryam hadda UK aan joogaa hadda aan imid adiga 3 wiil ka hor haddii aan jooga hadda okay walaalo ana Sweden aan jooga insha allah bal waan ku igu soo darsa aye meeshii lacagaha loo soo marinayo aan insha allah aan isla meel dhigayno aye maryam khayr allah ku siiyo allah ku xafido marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyo in dadkaas gurmad lala gaaro beris waxaan barnaamijkeena ka dhigi doonaa in dadka dhibaataysan ee degmooyinka degan dadku caadiga guryaha sararka degan waa isbaadi karaan laakiin dadkaas masaakiinta degmooyinka degan ee dhibaataysan oo daadad ku qaadeen oo roobkii ay soomeen insha allah waxaan rajeynaynaa inaan gurmad u samayn doono fiidooyo intaan ka badanna waa soo tabin doonaa hadduu ilaah yiraahdo in cod dheer iyo cod gaaban aan dowladda ku gaarsiino waxaan la hadlayna waa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maaha yirisow waxaan leenahay dadkan waa in la badbaadiyaa dadkan masaakiinta waa in la badbaadiyaa oo guryo loo dhisaa oo daadadka laga qaadaa oo booyado loo diraa oo si degdega biyahaas loo qaadaa si oo cudur ugu dhimaan waa aragteen waddooyinka waa xirmeen degmadii warta nabadda gebi ahaanba waddooyinka waa ka xirmeen ilaa hadda guddoomiye iska xilqaama male guddoomiye hooshaas ku jira male guddoomiye dalka waa ka maqan yahay sida lay sheegay waxaan leeyahay dadku insha allah ha tashtaan dowladdana waxaan leeyahay walaalayaalow dadkaas lala gaaro marka bara cali aan wacana hadduu ilaah yiraahdo annaka mowqifkeena waxa waaye in dadkaas la badbaadiyo ee waddooyinka ay ka xirmeen baraaye السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج كمال سعد برنامج كده وصول يا صاحب معناها يعني إنه يدك كله النظافة دي واحد يبغاه وندك كده ما ممكن أو كجعم بدحي أساسا ملاينا عد كامهن عد كا تلفك كان لسين حول الحتى جدك هذه أنا سعودي جوا سعودي السعودية جوجتا وعن كلنا وعواي dadkii magaalada muqdisho biloomay degmadii wardhiigley haddaad taqaanin kale dadkii masaakiintii deganaa daadada qaaday degmada laftigeedii rooba waddooyinka ka xireen sidee shacabkaas badbaadin karaa fikir ahaan adiga ama dhaqaale loogu diri karaa والله أرتني وحنا كل شيء أرتم مدة الصومالية مرة البرت إذا أسوق المتة ما فهمت واجب أقسم تايم حنا كل شيء اللي قال لابد يكون كوي تبك إلا يا أوارت هذا مدة أو بيتي مدة الصومالية خاصة أنا قرب جوك تايم حنا كل شيء كلامي ما كعيا تمكس واجب
maxaa marka baaqaa dire marka adiga ummadda baaqaa dire soomaaliyeed muxuu yahay adiga baaqaa dire iyo aniga dhalinyaradaada baaqan iyo facebookaaga maxay tahay wallahi baaqa dirayta aniga waxa weeyaan in lasu gurmado oo maxaa ku sheegay awoolkan aad tahay soo kale in lasii wado maxaa ku sheegay dadka walaalka oo masaakiinta meesha oo maxaa ku dayacan in loo gurmado oo wax loo qabto waa taageersanaya waa fikir fiican magays waa garta yani meesha aan naal aniga is dhigno marka hadda anigu is dhigno inaan iska bixino masaakiinta inaan u gargaarno way wanaagsan tahay marka waa ra'li fiican marka anigana waxaan ku talinahay dhalinyarada Soomaaliyeed in maxaa ku sheegay meel walba joogan oo gacmooda jiri wax ku qabtaan oo ayaga isgarab istaagaan oo maxaa ku sheegay waa maasantahay bare waan kaga mahadcelaa waqtigaaga fiidoogan noo sheer galay insha allah barnaamijkana beri subax iyo isku dhaafin oo ka xiisa badan hadduu ilaah yidhaahdo iyo sawirro hor leh oo hadduu ilaah yidhaahdo asxaabay waxaan ii sheegayaa ballanteena waxaa waaye inaan dadkaas masaakiinta daadad ku qaadeen sidii daadadkaas looga badbaadin lahaa aan iska kaashano oo fikir ahaan la nimaano in aan fariinteena ku gaarsiino madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha anigu labadaas lela hadlaa mogta horta cid bini aadan oo kale aan la hadlo male sababtoo labadaas waa dadka ra-iisul wasaaraha xildhibaanadoo dhan cod ka siiyey cid u diiday xataa hal cod ma lahayn madaxweynaha markii la doortay isagoo ay doorashadu socoto ayaa madaxweynaha dadku iyo banaanbaxyada iyo damaashaadka ay socdeen shacabkii inii hiliy maanta waa dhiban yihiin hooyooyinkii masaakiinta ay ahaayeen curyaamiintii ahaayeen dadkii waddooyinka lugeynayey farmaajo dadka gurigiisa hor dhoomnaa waxay ahaayeen dad masaakiin oo lugaha ka wada go-an dadkaasi maanta ma haystaan hooyey iyo caafimaad ma haystaan marka waxaan leeyahay tomorrow insha allah e11 hadduu ilaah yidhaahdo waqtiga ay UK tahay hadduu ilaah yidhaahdo marka anigoona jecel barnaamijkan oo badin doono iyo dadkaas oon gurmad gaarsiin doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu